sida la socotaan maanta ajandadu wuxuu ahay xeerka shaqaalaha sidoo kale tane waxa la keenay ajanda cusub ee xildhibaanadu u codeeyeen oo ah arrimihii hubka sida sharci darrada ah ee ku soo gala dalka waa ajanda hadda laga booday oo guddoonka ka booday waxaan la soconaa dhammaantiin la wada soconaa oo saxaafadda ka shaqeeyo tiimka hadda dalka ka taliyo waxay mar walba ku handadi jireen xukuumaddii dawladdii hore in loo noqonayo 91dii oo ah xilli mugdiya oo dalkan Soomaaliyeed uu galay dagaal sokeeye maanta waxaan marqaati ka nahay from Somaliland to Jubaland inay dagaal beeleedii ay ka socdaan beelihii Soomaaliyeed ay subaynayaan oo haddana idin hadlaayo anu deegaanka matalo oo la dhaho Calaag iyo Iji oo isku hor fadhiyaan laba beelood oo Soomaaliyeed sida xogta aan ku helayeen hubkii dawladda la soo isticmaalayo oo halkaas uu dagaal ka taagan yahay waxaan leeyahay xukuumadda hadda jirto ee dawladda hambaliyo waa ku guuleysateen in dalkii geysaan 91dii ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu baaqayaa inay dalkan badbaadiyaan kana badbaadiyaan tiimkan ka shaqeysanayo hubka sharci darrada ah iyo daroogada waad la wada socotiin dhammaantiin maalinkii ay xukunka la wareegayeen dalka meeshuu marayay waa sax shabaab dagaalka waa lagu qaaday meelo badanna waa laga qabtay laakiin maxaa bedelay dagaal beeleed ayaa matalay sidaas darteed ummadda Soomaaliyeed ha u diyaar garowdo inay dalkan badbaadiso laga badbaadiyo nimankan meesha xun ku wado waa u sheegnay si hoosana waa ugu sheegnay haddana si kor aan ugu sheegaynaa dagaal beeleedyada meelaha ka socdana iyo deegaanada ay ka socdaan waxa ugu baaqaynaa dawlad idii soo socoto ma jirto ilaahay ha laga cabsado ammaan ha la isiisiyo wiil Soomaaliyeed inuu meel ku dhinto maahine dagaal maahine wiil noogu dhalan maayo marka waa in aqligeena aan ka shaqeynaa waa inaan fikirnaa ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadna meeshii joogan waa inay heegan u galaan sidii colaadahaas ay u dami lahaayeen ummaddaas islaamka oo islaynayso ma u jeeda anigu runtii hadda idin sheego dawlad ku soo baxayso dagaaladan hadda bilooyin ay socdeen cid ku soo baxdana ma jirto waxaan afka u furanayno waa taas waxa waaye dadkaas waxaan ugu baaqayaa walaalaha ah inay dagaaladaas ay joojiyaan dawlad idiima soo socotay idin kala celinayso adigu isdaaya qurba joogta Soomaaliyeed ha soo farageliso waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh